warcusmeedii ayaa waxay baabuur la saaran tahay Sidi Cali Maxamed Jaab oo kamid ah aqyaarta soo dhaweynaysa wufuudda ka socota Soomaaliya oo uu hogaaminayo Jawaari. Sidi Cali ma noo sheegi kartaa sababta aad u soo dhaweynaysid Jawaari? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meesha waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, Muqdisho, Hargeysa, Berbera, meel kasta ay Soomaaliya ay joogto, Oslo. waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo saa u ogtihiin jaaliyada reer Troyham oo Norway. marka saas daraadeeda ayaan gudoomiyaheena waxaan u soo dhaweynaynaa annagoo dhan bulshada Soomaaliyeed ee joogta magaalada Oslo qaybaheeda oo wada dhan oo wada wata ayaa maanta waxaan soo dhameynaynaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada la socda ee safarka kula soo jira hadduu Ilaahay raali ka noqdo. sababta u soo dhaweynaysid maxay tahay? sababta u soo dhaweynayna waxa waaye maadaama annaga aan nahay dad Soomaaliyeed oo Islaam ah oo hal meel ka soo wada jeeda, hal hooyo hal aabbe ay wada dhaleen, saas daraadeed ayaan u soo dhaweynaynaa maadaama uu yahay madaxdeeni waddanka. saas daraadeed u soo dhaweynaynaa. Hi. How are you? I'm fine. Good to see you. Good to see you too. We came together. I was not sure who accompanied it. Oh yeah. Hi. How are you? Tore, did we meet in Mogadishu? No. No. So you're the official welcome. I am. But you see. I think they arrived this morning, yes. So they're already at the hotel. We will take you now to the hotel. And then to give you some time to rest. جدًا هو إنه صفة كي وحوي إن برلمانك الصومالي فدرالك الصومالي إن برلمانك النرويج عن هاشي السمو يلا نو واحد أنا كوحدنا كلا فائدة يسمى أفكار تمام كبرلمان هذا مدن Jawaari waxa kula hadlaya warbaahinta war cusub warbixin guud ma naga sii kartaa qaabka ku socda wadanka Soomaaliya? Soomaaliya guud ahaan horumar tartiib u socda laakiin si joogto u socda ayaa ku sii socda xagga noqoto xagga nabadgelyada xagga dibudhiska xagga siyaasadda iyo bisaylka shacbiga intaba horumarku soo kordhaya hasiishe waxaan aad u filaynaa aad u falanqeyn doonaa ka bacdi markaan kulano maalin talaada la sheegan maalinaan kulli insha maxaad uga baahan tihiin aqoon-yahanada qurbaha jooga? aqoon-yahanada waxaan uga baahanahay inaysan iloobin dalkooda waa soo noqon doonaa marba si fiican u shaqaysan doonaa haddii aan war cusmeedii ayaa waxay elaboorka kula kulantay jaaliyada Soomaaliyeed degan Norway oo soo dhaweynaysa Jawaari iyo wafdiga uu hogaaminayo suldaanka Soomaalida Norway ayaa hor taagan. waxaan jeclaan inaan weydiino bal sababta Soomaalida Norway u soo dhaweynayaan wufuudda ka timid Soomaaliya. waxaan u soo dhaweynaynaa waa dawladdeedii waa baarlamaankayagii waa dawladdii Soomaaliyeed waana ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo. The aim of this study visit is to meet the Speaker of the Parliament of Norway and the parliamentarian committees in Norway to learn how they are working here, and maybe there may be some experiences they can take with them back to Somalia. Soomaalida Norway ayaa waxay u dooratay golaha deegaanka ee Oslo xildhibaano Soomaaliyeed. Baash Muuse ayaa hadda u jeednaa kaligiis oo yimi garoonka diyaaradaha ee lagu soo dhaweynayo Jawaari iyo wufuudda la socota. baashi sababta u timi oo ugu dhex muuqato arrimaha Soomaalida markasta ma noo sheegi kartaa? ها runtii
حسن يور عسب مديرنتي وأنا كم هذا خيا ماشان شوفوا يدينا وتشوفهم ما ترنتي فرحت قراية تهاي محمد عثمان جواري أو قدامي برلمان كصوماليات ما دام إيمانا يمانتا سيجارة يعني بفرح سنة أنا كنت بسود وياه استجوا لين كتر سنة شاليد الصوماليات إسلام كان عقد قدامي برلمان كصوماليات أيها واحد أركان runtii in dadka Soomaaliyeed ee halkan degan ay ku xidhan yihiin dalkoodii hooyo marka taasina ay qayb ka qaadanayso in la isku xidhmo in dadka la soo dhaweeyo wax kasta oo shacabka Soomaaliyeed wax loogu qabanayo aniguna waxaan ka ahay qayb marka runtii taas ayaa igu kaliftay in aan runtii imaado aad iyo aadna runtii dareenkayga ugu sarreeya oo aad iyo aadna waan faraxsanahay inaan maanta halkan joogo kana qayb qaato soo dhaweynta gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya warbaahinta war cusub media ayaa waxay garoonka diyaaradaha Oslo Norway kula kulantay Soomaali wada ubax oo rabta inay ku soo dhaweyso gudoomiyaha baarlamaanka iyo wufudiisa su'aalo yar ayaan weydiinaynaa walaal adiga magaca farxiyo cali maxamed maxaad ubax u wadaa wax adiga wadna gudoomiyaha ku soo dhaweyno markii ugu horeysay madaxda markii ugu horeysay Norway ugu soo noqday maanayo inta baarlamaanka gudoomiyaha ka noqday sax haan jecelnahay inaan soo dhaweyno insha Allah gudoomiyahani waa gudoomiyaha baarlamaanka waa inaan aad u jecelnahay كان أولنا أهانجر نروي هذا نوع قدومي برلمان وياي مركب وحرنا إن نسافر عن سود وينه وقعمو فران سود وينه وأودي الصوماليات وقدومي برلمانك قدومي برلمان حسود ويننا وأودي الصوماليات وهجامينا أيه ومد الشعب كصومال مال على الماشي جوجان قارحان هذا نودنا بنروي ودقنا أساس وصول ويننا كان كم بحثي يعني سو نوع ما شد ونوع ما ناي أنا نوصل ويننا gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa ugu dambeyntii waxa loo galbiyay hotelkii uu degi lahaa warbixintan muuqaalka wadata waxa idin soo bandhigay idin soo diyaariyay Xasan Tool war cusub media Oslo Norway